idadiile iyo farxad soo laabatay oo laga qabay dhanka orodada gabdhaha in kaalimaha hore ay gasho Samsam ayaa maanta noqotay mid lagu hungoobay waxaana maanta ay ahayd maalin si weyn loo sugay oo qiimo dheer u lahayd ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan saacadda Afrikada markii ay ku aadanayd 2 duhurnimo ayaa waxaa heegan buuxa galay dadka Soomaaliyeed iyagoo qabay rajada guusha waxaana si kaliya laaba looga sugayay Samsam inay guuleysato inkastoo awoodeeda ay dadaashay laakiin qadarka alle oo aan la baajin karin ayaa Samsam ay soo haabatay kaalimaha dambe iyadoo guuldarro jaal noqotay 19 jirkan Soomaaliyeed ayaa noqotay qof soo jiidatay indhaha caalamka kadib dadaal wadaninimo iyo firfircooni dheeri ah waxaan Samsam ay ahayd gabar si weyn qaranka Soomaaliyeed ay u soo sagootiyeen taariikhdana qayb ka gashay Kenya ayaa ka mid ah meelaha Soomaalida ka soo baxay Soomaaliya ay ku nool yihiin waxaana isha ay ku hayeen cayaaraha orodada oo Soomaaliya qayb ka tahay waxaana dhammaan ay sheegeen in mar walba guul iyo guul darro taageeradoodu ay furan tahay Samsam misanahay inay guuleysatay mar haday kaalinta 7aad gashay maxaa yeelay adduunka wax walba waa isku day hadii qofku wax isku dayo oo heer buu ka keenaa marka mar haday kaalinta 7aad gashay iyadoo kaalinta 1aad gashay bay aniga igala mid tahay runtii waa daawanaynay waxa weeyaan Samsam isku daygi fiicnaa ay sameysay oo ka dhex muujisay calanka Soomaaliya Olympic-adii London aad baan u soo dhaweynaynaa waanu taageeraynay haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed waxaan u aragnaa arintaas inay tahay isku day wanaagsan oo runtii aad loogu baahnaa khasab ma aha in qofku waxa weeyaan kaalin galo ama waxa weeyaan uu golden qaato muhiimadu waxa weeyaan in wadanka faylarka ee dhowr 20 sano waxa weeye dawlad la'aanta ahaa in calankiisa uu ka dhex muuqdo 200 dheeraadka dawladood ee ka soo qayb galay Olympic-ada London ka dhacaysa aad baan u soo dhaweynaynaa maxamedna waxaan u rajaynaynaa isagana guul waxa weeyaan oo khasab ma isaga laftigiisa inaanu ka filayno inuu waxa weeyaan kaalinta 1aad iyo 2aad iyo 3aad midna galo laakiin waxaanu ka rabnaa oo kaliya inay meesha ka muujiyaan calanka Soomaaliya runtii Samsam waxay soo saartay calankayga sidii wiilka Cabdi Bila Cabdi oo kaleeto waanu ku faraxsanahay wareegga dambena waxaan rajaynaynaa insha Allah inay guul ka qaadato magacayga waa Salaaman Ismaan Saalax marka haddaan ka hadlo fikirkayga ku aadan Samsam iyo tartankeeda maanta soo istaagtay run ahaantii waxaan oran karnaa waa markii ugu horeyso qof Soomaaliyeed oo u soo istaago booskaas ama caynkaas oo ugu soo ordo qarankiisa muhiimadda meesha loo tagayna waxa ahayd in calanka Soomaaliyeed la geeyo iyo dadka adduunkana la tuso inaynu qaran jiranahay dad la simanahay oo dad meel gaarsiisanahay marka waan ugu hambalyeynaya guusha ay soo hoysay maanta waxaan leenahay muhiimadda waxaad calankeena aad geeysid calankeena waad geysay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ka qaybgalka ay ka qayb gashay Samsam Olympic-ada adduunka maadaama ay soo saartay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dib ay qaar ka taagan tahay ay ku tababaratay kaalinta 7aadna ay soo gashay maasha Allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya uu ka luxday caalamka oo dhan inkastoo awoodda qof kasta oo muslim uu yeelan karo xilligan orodada fog ay tahay mid sidaas aan u sii dheerayn maadaama lagu guda jiro Ramadaan ayaa Samsam inta badan Soomaalidu ay sheegeen inay la ordaysay dadka yimid wadamo dhisan helayna tababar buuxa gari laba nin kama wado qosliso Samsam iyo Maxamed waxay maalmo ka hor diyaar u ahaayeen inay wajahaan guul iyo guul darro hase ahaatee waxay ka ilmeysiyeen Soomaali badan oo qurba jooga markii ay arkeen wadanimada ay xambaarsan yihiin iyo halka uu calanka Soomaaliyeed babanayo Sucaad Mira Maxamed Royal TV